maxaad u taqaanaa geedkan? Waa geedka geedaha ugu halista badan. Waxay Soomaalidu ku magacaabaan cali garoob, garanwaa iyo geed yuhuud. Manfac ma laha. Geed kale oo manfac lehna inuu ka hoos baxo maba ogola. Waa geed qodxaley ah oo qashinka iyo bacaha daris iyo dugsiimo u ah. Carrada Soomaaliyeed cirifka cirif waxaa gaaray raadkiisa. Dadkuna waxay ku tilmaameen musiibo Soomaaliya lagu talaalay. Haddaba, yaa keenay Soomaaliya oo ku beeray? Muxuu yahay magaciisa saxda ah? Iyo halista uu leeyahay ayaan sheekadan ku eegi doonaa. Geedkan waa geedka geedaha ugu halista badan iyo midka ugu xundhirta. Waxaa loo yaqaan magacyo kala duwan oo ay Soomaalidu si iskood ah ugula baxday. Waxaa ka mid ah cali garoob, garanwaa iyo geed yuhuud. Geedkan dad iyo dunyaba wax nacfi ah uma lahan. Miro la cuno ma lahan iyo hoos la dugsado toona. Waxaa intaasi ka daran inuu geed kale oo manfac leh ka agbaxo maba ogola. Sidaasi darteed waxaa daris iyo dugsiimo u ah bacmadow, bac khafiif, haraadiga jaadka iyo qashin oo dhan. Sheekh Maxamed Cabdulaahi Xoosh oo ku takhasusay geedaha waxa uu yiri geedkan waxaa laga beeraa iniin. Waa geed aad u faafid badan oo sidoo kalena degdeg ku baxa. Geed yuhuudka dhaqankiisa waxaa ka mid ah waa dhirta dulqaadka u leh oonka daran oo aan muddo dheer biyo u baahan. Waxaa cajiib ah in cali garoobka xididkiisu uu ilaa iyo 50 mitir uu biyo ka soo qaadan karo, taasi oo dhinaca kale muujinaysa in uusan ka hoos bixi karin geed kale. Taasina waa sababta halka uu ka baxa ka yeeshay meel aragga ka caagan. Dadku waxay ku tilmaameen inuu yahay musiibo Soomaaliya lagu talaalay. Faa'iido iyo manfac iska daaye, xataa waxa uu dilayaa dhirta nacfiga u leh bini'aadamka iyo xoolaha. Haddaba, su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, yaa Soomaaliya ku beeray geedkani? Taariikhdiisa geedkan ee Soomaaliya ma foga, sida uu ku waramay Professor Axmed Muumin Warfaa. Geed yuhuudka waxaa Soomaaliya keenay nin caddaan ah oo ka tirsanaa Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa inta uusan dhicin burburkii dalka. Professor Warfaa oo ka faaloonaya ninka keenay geedkan halista badan waxa uu yiri oo uu hadalkiisa ku bilaabay, dalkan waa loo soo weerar tagay. Ninkaas caddaanka ah waxa uu ka socday Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxaana loo soo diray si dhulka Soomaaliyeed uu ugu beero geed yuhuudka. Laakiin isagu waxa uu noo sheegay inuu manfac leeyahay geedkan isla markaana dhulka cagaarin doono maadaama markaasi abaaro daran ay ka dhaceen dalka, doogiina uu qalalay.